xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac ayaa eedeymay ugu cuslaa u soo jeediyay shirkadda Sunpower xildhibaan qaar kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxaana xildhibaanka hadaladiisii kamid ahaa waxaan ka hadlayaa in leerka energy-ga daantaasaan ka hadlayaa oo aad iyo aad shirkad wadanka monopoly loo siiyay waxaan leenahay madaxweynaha danguud ha laga dhigo hadii aan ku heshiinin iyagu inay dawladdu la wareegto in midnimada laga dhigo caasimada oo dawladdu la wareegto oo waxaan buuqaba laga daayo tan Sunpowerna wasiir ba halkan u fadhiya waana wasiir waana shirkadii ka shaqeeya taada ma yimshi marka hawayaan marka wax isku mid ah laga qaadano leen taasoo kale tan kule waa qalad madaxweynuhu inuu soo dhex galaa oo waxaan laga dhigaa monopoly-ga laga daayo oo laga dhigaa shirkad danguud laga dhigaa oo dawladdu la wareegto hadii kale maalmo taasa laga joojiyay dadku waa qaylinayaan sicir gooni laga qaado isku sicir maaha telesom noo jabanana marka waxaan leenahay isku mid ha laga dhigo mid tijaaradu waa xubban baarlamaanka ku baaskareynay tijaaradu qof looma xiri karo marka waxaan leenahay tijaaradu xor ha noqoto dadka monopoly-ga ku haysta ha laga daayo madaxweyne soo dhex galay arrintaas waa aad iyo aad bay u shaqantay dad bulshada daanta waxaan ugu baaqayaa waa insha Allah wana ka hadalay hadal laguma yara wana sugu doona wixii laga qabto magaalada madabada arbood baa miyaan daanaha kale iyaga laftooda ma waa wixii dooxa ka shisheeyna waa daan wixii halkan ka soo reeyna waa daan waa sicir gooniye ma haysto aan kuma naasta Mar Ali Ducaale Cumar Shabash telefishinka bulsho magaalada Hargeysa.